kuman geesi u mudan geerida haddaan gobannimo gutiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaa soo go'ay miyaan guralayn midhaa soo go'ay haddaan loo go'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobannimo gutiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaa soo go'ay miyaan guralayn midhaa soo go'ay alloo ku gargaarkayga nabado dadkana garasiilibiyo gobannimo dadkana garasiilibiyo gobannimo alloo ku gargaarkayga nabado dadkana garasiilibiyo gobannimo dadkana garasiilibiyo gobannimo gafiya uma haysta godabo washayda xumaan kuman guntano waxaanu maanta halkan rabnaa inaanu ummadda reer Somaliland kula socodsiino in aanu halkan ku soo dhaweynay wafti ballaaran oo ka socda dalalka la isku yiraahdo EU-da yurub oo badankoodii halka jooga halkan waxaa noogu yimid safiiro ay ka mid yihiin kii dhammaantood Denmark, Norway, Sweden, UK, Switzerland, Finland, intii muhiimka ahayd ama waaweynayd halka kan ayay maanta noogu yimaadeen waxay u yimaadeen in aanu isweydaarsano aaraa iyo afkaar arrimaha badan ee ka jira mandaqadda iyo xiriirka Somaliland iyo dalalkaas ay leeyihiin sidii hore loogu marin lahaa sidii la isu xogogaarsan lahaa la isu dhaafsan lahaa wixii macluumaada iyo wixii afkaara ee loo baahan yahay in laga wada hadlo hadday siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay hadday gargaar tahay hadday tahay nabadgelyo dhinac walba waa laga wada hadlay si wanaagsan baana la isku wada afkartay dhammaan arrimihii laga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne xigeenka iyo wasiirro dawladda ku jira ayaa la fadhiistay oo arrintaas si wanaagsan baa la isugu afkartay meelo badan iyo hay'ado badan oo ay danaynayaan bay la yeelan doonaan afkaar iyo isdhaafsi xog aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Very much and good afternoon. I'm the ambassador of Denmark and it's a great pleasure to be here with this delegation of distinguished colleagues, ambassadors and representatives of Norway, Sweden, Finland, Switzerland, the UK and the European Union. We've had a very productive and very interesting discussion this afternoon with His Excellency the President and several of his ministers. We are here as some of the close friends of Somaliland and we have expressed our concern for the humanitarian situation in Somaliland that is caused by the continued drought. We have discussed the relationship between Somaliland and its neighbors. We were very pleased to hear the strong commitment from His Excellency the President to have a good dialogue both with Somalia, the government, on issues between those entities. We have also had the opportunity to discuss at length the upcoming elections in Somaliland.
We are strong supporters of the democratic process here, and we have discussed with the President our hope that it will be possible to find a compromise between the political actors that will lead to elections this year. We have stressed that, seen from our point of view, that is an important part of the good image that Somaliland has in the international community, that you continue your path on achieving even more democratic gains, and an important part of that is to have regular elections. So we have expressed very clearly that that is our expectation of all parties in Somaliland, that they sit together, they find a compromise, and they find a way to have elections this year. We see that also as an important part of making sure that there is a dynamic political situation where strong development plans can be developed and also implemented to the benefit of the citizens of this country. So we are here to work with you, but of course based on political solutions that are created by the Somaliland actors, and which they stand behind, and where we can then come in and support. So I think that has been the key elements of our discussion today, and as I said, we have been very pleased with the good reception that our suggestions and our comments have received from the government side. Thank you very much.